magacaygu waa Reverend Mahad Hilo Brick. waxaan ku dhashay Kenya oo ka dhashay qoys Soomaali Muslim Sunni ah. waalidkay waxay si adag iigu soo koriyeen dhaqan sunni ah. markii aan yaraana waxaan imaam ka noqday magaaladayda aan ku dhashay. waxaan tujin jiray salaada markastoo aan salaada tujinayo waxaan mar walba dhihi jiray اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ilaahow igu hoggaami jidka toosan, jidka saxda ah iyo sidii aan ugu baryi jiray ducadan mar walba. waxaan ogaa in ilaah haddii uun runtii jiro inuu hal maalin uun igu hoggaamin doono jidka saxda ah. sanadkii 1980 reerkayga iyagoo ka cabsanaya in dawladda dhibaatayso waxa lagu magacaabo xasuuqii Wagala waxay igeeyeen Soomaaliya. markay igeeyeen Soomaaliya waxaan haystay su'aalo badan kuwaasoo aan rabay inaan weydiiyo sheekhyada iyo culimada diinta Islaamka, laakiin jawaab kama helin. maxaa yeelay mar walba waan ducaysan jiray oo mar walba waxaan isweydiin jiray, hey, haddii maanta aan dhinto xaggan aadayaa naar mise janno? qof iiga jawaabaana ma jirin. sheekhyadana mid walba oo iyaga ka mid ah wuxuu dhihi jiray, ilaah oo keliya ayaa og meeshaad aadaysid. waxaan noqday mid aan qanacsanayn sababtoo ah su'aalaha nolosheeda oo dhan lagama jawaabin. oo waxaan ku ogaa aqrinta quraanka in aanan dhammaystirnayn, oo dhammaystirnaantaydana kuma heli karo shuqulada aanig samaynayo. oo maalmaha ka mid ah anigoo wareersan waxaan la kulmay qof missionary masiixi ah oo Maraykan ah. waxaan ku idhi, adigan gaalka ah, kaafirkan masiixi oo mar walba been ka sheega wax kasta, ii sheeg waxaad rumaysan tahay. missionary-gan wuxuu igu yidhi, waxaad joogtaa waddan muslin ah, wax walba ma kula wadaagi karo, laakiin waxaan hayaa buug ka jawaabi kara su'aalahaaga oo dhan. kolkaasuu aniga ii tilmaamay kitaabka Baybalka. waxaan qaatay kitaabkii Baybalka waxaana la barbar dhigay quraanka muddo 2 sano iyo bar ah. waxaan akhriyay bog kasta oo ka mid ah. anigoo habkaas ku socda waxaan maskaxdeeda ku gartay in aan daba socday nin aan isagaba aqoon meelo u socday. waan iska daba socday, waxaan ahaa qof indhoolo ah oo daba socday indhoolo kale. kadib markaan akhriyay quraanka, kadib markaan si fiican u akhriyay kitaabka Baybalka ah, waxaan ogaaday inaan ahaa dembiile u baahan badbaadiyahaas oo noqon kara oo keliya ninka dhammaystiran ee Ciise Masiix. sanadkii 1987 naftayda waxaan u dhiibay Ciise Masiix anigoo ah wiil dhalinyar. dhowr bilood gudahood waxaa bilaabmay silcin. markii aad ku sugan tahay waddan muslin ah oo 99.9% ay muslim yihiin, waa lay xiray. anigoo ah rumaysto dhalin yar waxaan si toos ah ugu tegi jiray qof walba oo dhihi jiray, hey, fiiri, waxaan helay ciisaha ah kan dadka badbaadiya. ciise masiix waa badbaadiye, maxamed qofna ma badbaadiyo. markaas waa lay xiray. qaar ka mid ah xubnaha kiniisadda Muqdisho waxay ahaayeen mas'uuliyiin sare oo dawladda ka tirsan. iyagu way ii yimaadeen oo way isii daayeen, waxayna xaqiijiyeen sii deynta aniga iyo rumaystayaasha kale ee la silciyey. laakiin 2 toddobaad ama 3 toddobaad haddana mar kale wayna soo xiri jireen. ugu dambayntiina kiniisadda waxay tiri, hey, iyagu way ku dili doonaan, bax dib isaga noqo Kenya. waxaan ku soo noqday Kenya. waxaan bilaabay shaqada Rabbiga. kadibna Soomaalida ku nool magaaladayda waxay ogaadeen inaan joogo Kenya, Wajeer. silcintii ma ay dhammaanin. noloshayda 4 ilaa 5 sano ugu dambaysay, labadeeda gacmood midig iyo bidixba
waa la jebiyey markii aan madaxayga difaacayay. qof baa rabay inuu igu garaaco bud ama ul weyn, mar walbana waan isdifaacayay. labada gacmood waa jaban yihiin. silcin aad u badan ayaa socota. u duceeya inay nabad helaan Soomaalida rumaystayaasha ee dunida oo dhan. annagana noogu soo duceeya nabad kuweena u adeega Rabbi Ciise Masiix. dhowaan waxaa dilkayga loo ballan qaaday 36 milyan. laakiin waxaan ogahay in sayidkaygu awoodo inuu idifaaco oo i ilaaliyo. isagu wuu ilaalin doonaa. iigu duceeya ilaalin.